السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جانلka aga daawanaysaan waa Sunrise Academy. waa ka xumahay labada isbuuc ee soo dhaafay cashirka dib dhac ayaa ku yimid sababtoo ah mashquul imtixaan iyo howlo aniga iyo khaas ayaan ku mashquulsanaa. saas darteed waan ka cudur daaranayaa sababtoo ah waxaan ahay arday sidaadoo kale waxaan ku mashquulsanaa imtixaan. fadlan soo dhawo channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad hore noogu xirnayd oo ku mahadsantahay sida qurux badan aad noogu xiran tahay muuqaalka like saar, share dhaha asxaabtiin la wadaaga wixii fikri firin aan noo haysaan commentiga noogu reeba. aad baa ugu mahadsantihiin sida qurux badan aad noo sugeyseen oo cashirka aad nooga soo dalbanayseen mar walba fariimihiin waa arkaynay balse mashquul ka aan idin sheegay dartiis ayaan muuqaalad u soo gelin waayay. cashirka maanta wuxuu ku saabsan yahay memory. sidaan wada ognahay intaan u gudbin cashirka koorsada socota waxaa la yiraahdaa computer hardware. cashirkii labaad iyo cashirka koobaad waa soo gelinay channelka. waxaan jeclahay inaad horey u soo daawatay. haddii aadan soo daawanin fadlan dib ugu laabo cashirka koobaad iyo kii labaad soo daawo cashirka saddexaad si aad ula sii qabsatid. cashirka maanta wuxuu ku saabsan yahay memory. waa maxay memory? Memory is just like a human brain. maskaxda bini'aadamka oo kale ayuu la mid yahay sababtoo ah maskaxda bini'aadamku waxbay kaydisaa, memorygan waxbuu kaydiyaa. Vita memory is a storage space used to store data and instruction. memoryga computerka waxaa loogu talagalay in wax lagu kaydiyo macluumaad iyo wixii la xiriiro. waxaa jira laba nooc oo memoryga. There are two types of memory. labada nooc oo memory waxay kala yihiin primary memory iyo secondary memory. primary memory oo sidoo kale loo yaqaano main memory ama internal memory ama system memory. internal memory waa memoryga gudaha, system memory na waa memoryga systemka. computer cannot run without primary memory. computerka ma shaqeyn karo primary memory la'aan. It's directly using by microprocessor ama CPU, central processing unit. central processing unit waa aaladda process gareyso daatada iyo shaqada computerka uu hayo iyo systemka. saas darteed waxay si toos ugu xiran tahay leeyihiin memoryga. saas darteed memory la'aan ma shaqeyn karo sababtoo ah shaqada waxa kala wada oo dhan waa central processing unitka. taasna waxay si toos ugu xiran tahay memoryga. tusaale memoryyaasha primary memoryga waxaa la kala yiraahdaa RAM iyo ROM. RAM oo laga soo gaabiyey random access memory iyo ROM oo laga soo gaabiyey read only memory. secondary memory also known as external memory or volatile memory. external memory waa memoryga banaanka. computer may run without secondary memory. computerka waxaa laga yaabaa inuu shaqeeyo secondary memory la'aan. It's slower than primary memory. uu ka xawaaro hooseeya primary memoryga. sidoo kale it's used for storing data and information permanently. sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo macluumaadka si weligood aysan oga bixin halkaas ay ku jirayaan si permanent ah. HDD tusaale ahaan HDD oo loo yaqaano hard disk ama hard disk drive, floppy disk drive, CD, compact disk, DVD iyo pen drive. okay sawiradooda haddii aan tuso primary memoryga ama main memoryga, RAM-ka sawirkiisa waa kana, random access memory sawirkiisa waa noocan aad ujeedaan. sidoo kale ROM oo ah read only memory asagana sawirkiisa waa kana. secondary memoryga midka ugu horeeya waa pen drive ama flash. waa kaas badanaa qof walba oo idin ka mid ah uu arkay ama uu isticmaalay ayaan jeclahay. sidoo kale floppy disk drive waa kana, waa drive-ka midkan oo cajalada la gelinayo. cajaladina waa tana, cajalada waa tan madowga ah, drive-kana waa midkan hoose. cajaladina waa tana, drive-ka la gelin lahaana waa tana. sidoo kale hard disk drive, hard diskigana waa kana. sidoo kale mid saddexaad waa CD ama DVD drive. drive-ka waa midkan weyn, CD-ga ama DVD-gana waa cajalada sarta ku dhex jirto. okay random access memory it's used to hold data and programs during execution. RAM-ka waxaa loo isticmaalaa in uu daatada uu hayo ama uu kaydiyo iyo programyada. sidoo kale wuxuu kaydiyaa programyada iyo daatada xilliga execution ku socdo ama xilliga uu process uu socdo. RAM is volatile storage, waa temporary memory. saas darteed if power goes the data goes. haddii computerka uu damo oo korontada ay tagto ama computerkaaga uu damo daatadina way baxaysaa si automatic ah haddii aan la save gareynin. saas darteed waa volatile storage ama temporary memory kumeel gaar ah. okay types of RAM. noocyada RAM-yada u kala baxaan maxay tahay?
first page mode RAM ala yiraahdaa midka ugu horeeyo. It's used in 486 iyo 386 and below model desktops. Modelada desktopyadii hore ayaa loo isticmaalaa oo 486 iyo 386 ah. It has 30 pin, wuxuu leeyahay 30 pin and it works on 3.3 voltage. Wuxuu ku shaqeeyaa 3.3 voltage. Extended data out RAM. Sidoo kale asagana waxaa lagu isticmaalaa Pentium 1, Pentium 2 iyo model desktops iyo sidoo kale modelada ka dambeeyay noocaas 1 iyo 2 kuwii ka dambeeyay sidoo kale loo isticmaali karaa. It has 72 pins, wuxuu leeyahay 72 pin and it works on 3.3 voltage. Wuxuu ku shaqeeyaa 3.3 voltage. Synchronous dynamic RAM. It's used in Pentium 1, 2, 3 and model desktops. waxaa lagu isticmaalaa Pentiumyadii hore oo midkii koowaad, Pentium 2, Pentium 3 iyo model desktops. Modelada dambe iyo noocyada dambe oo desktopyada sidoo kale loo isticmaali karaa. Sidoo kale it has 186 pins and works. Wuxuu leeyahay 168 pin waxaana uu ku shaqeeyaa 3.3 voltage. Wuxuu ku shaqeeyaa 3.3 voltage. sawirka ugu horeeya waa kana waa first page mode. Sidoo ayuu eegyahay sawirkiisa. Kan ku xiga oo ah extended data out RAM. asagana markaas sawirkiisa kan ugu hooseeyana waa double data rate RAM. Okay, double data rate ka it's used in Pentium 4. waxaa lagu isticmaalaa Pentium 4 dual core iyo model desktops. waxaan dhan waa kombiyuutarada noocyadooda kala duwan waaye. Pentium 4 computerka la yiraahdo, dual core midka la yiraahdo iyo model desktops iyo kuwii dambe. It has 184 pins and it works on 2.5 voltage. kaasi waa double data rate 1. Double data rate 2 sidoo kale waxaa loo isticmaalaa Pentium 4 dual core, core 2 duo and model desktops. It has 240 pins, wuxuu leeyahay 240 pin wuxuuna ku shaqeeyaa 1.8 voltage. sidoo kale double data rate 3 used for dual core to core i7. waxaa lagu isticmaalaa computerka kasoo bilowda dual core ilaa iyo core i7 and model desktops. It is available in 240 pins. waxaa lagu helaa isagoo 240 pins waa la helaa and it works on 1.5 voltage. wuxuu ku shaqeeyaa 1.5 voltage. sidoo kale double data rate 4 waa nooca ugu dambeeyay oo hadda la isticmaalo. RAM-ka ugu dambeeyay hadda la isticmaalo kan ayaa la yiraahdaa. wuuna ka casirsan yahay kuwan kale. waxaana loogu talagalay in awoodda computerka lagu siyaadiyo. ama sidoo kale it has 288 pins. wuxuu leeyahay 288 pins and it works on between 1.2 voltage to 1.4 voltage. wuxuuna ku shaqeeyaa inta u dhaxayso 1.2 to 1.4. sawiradooda waa kana DDR1 waa midkan ugu horeeyo, DDR2 waa kana kan labaad, DDR3 waa midka saddexaad, DDR4 waa midka afraad oo hadda ugu dambeeyo la isticmaalo. Okay, read only memory muxuu yahay? Read only memory is used to store instructions that are required to start the computer. waxaa lagu kaydiyaa macluumaadka loogu baahan yahay in computerka lagu kiciyo ama lagu daaro. tusaale ahaan, a common example is BIOS. BIOS waxaa laga soo gaabiyey basic input output system. waa program lagu kaydiyo RAM-ka. wuxuuna qaabilsan yahay computerka soo daaritaankiisa iyo systemka computerka uu kusoo kacayo ayuu qaabilsan yahay ama lagu kaydiyaa. BIOS wuxuu u taagan tahay basic input output system. Two types of RAM baa jirto. Two types of RAM waa BROM oo ah programmable read only memory. It can be programmed only once and is not erasable. noocan ROM-kan nooca ugu horeeya la yiraahdo programmable read only memory. hal mar waa la programming karaa ayaa la leeyahay. saasay tahayna lagama tirtiri karo wax. hal mar baa la programming karaa, dib damban wax loogama tirtiri karo. sidoo kale the user buys a blank BROM and enters the BIOS program using machine. qofka isticmaalaya ama userka wuxuu soo gadanayaa BROM-kan ama programmable read only memory-ga asagoo ever soo gadanaya, wuxuuna gelinayaa BIOS-ka asagoo isticmaalaya machine. Programmable read only memory sawirkiisa halkaan aad uga jeedaan. sidoo kale waxaa ku xiga EEPROM oo ah erasable programmable ROM. kan kalena waxaa la yiraahdaa electrically erasable programmable ROM. labadooda waa kuwana. midka ugu horeeya waa erasable programmable read only memory, kan kalena waxaa la yiraahdaa electrically erasable programmable read only memory.
waa kana erasable programmable read only memory. In this type of ROM, data or program can be erased by removing the device and expose it to ultraviolet light. waxaa loo isticmaalaa ROM-kan noocan in la soo bixiyo dabcan markii la rabo in wax laga delete gareeyo ama markii wax laga tirtiro la rabo inta la soo bixiyo asaga dhan ayaa qoraxda la dhigaa xoogaa saacado ayaa loo kaadiyaa ama daqiiqado kadibna dhaatada way ka baxaysaa sidoo kale in this EEPROM kan laftirkiisa number of times program can possible to store and erase by using machine sidoo kale dhowr jeer ayaa waxna laga tirtiri karaa waxna lagu shubi karaa iyadoo la isticmaalayo machine by using machine sidoo kale EEPROM electrically erasable programmable read only memory number of times program can possible to store and erase under software control sidoo kale dhowr jeer ayaa wax lagu shubi karaa waxna laga tirtiri karaa sidoo kale iyadoo la isticmaalayo software control aalad software ah iyadoo la isticmaalayo today's mostly motherboards are using EEPROM sanadahan dambe motherboard systemka dabcan mainboard systemka wuxuu isticmaalaa EEPROM kan oo ah electrically erasable programmable read only memory sidoo kale it's fixed on motherboard wuxuuna ku dhagan yahay motherboard oo ma wax laga soo fujin karo halka kuwa kale la soo bixin karo waxna laga tirtiri karo sidoo kale sawirkan dheer waa memoryga computerka iyo noocyada ay kala baxaan waa computer memoryga computerka wuxuu kala baxaa internal main ama primary memory waa hal magac oo isku mid ah kulli yacni internal waa dhihi kartaa main waa dhihi kartaa primary waa dhihi kartaa sidoo kale external ama secondary memory labadaas nooc ayay u kala baxaan memoryasha halka primary memoryga uu kala baxo ROM iyo RAM oo ah read only memory iyo random access memory ROM-ka waa non volatile RAM-kana waa volatile HDD hard disk drive SSD compact disk iyo USB flash drive sidoo kale SRAM static RAM iyo dynamic RAM RAM-ka wuxuu kala baxaa static RAM iyo dynamic RAM dynamic RAM-ka wuxuu kala baxaa synchronous dynamic RAM iyo RD RAM iyo DDR RAM DDR SD RAM sidoo kale DDR RAM kan wuxuu kala baxaa DDR1 double data rate 1 ah DDR2 double data rate 2 double data rate 3 double data rate 4 intaas ay u kala baxaan memoryasha noocyadooda iyo sida isugu xigaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharka aad baa ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka fadlan haddii aad channelka ku cusubtahay subscribe saar haddii aad horey noola joogteen waa ku mahadsantahay sidaad noogu xiran tahay asxaabtaada kale la sii wadaaga casharka si ay uga faa'iidaystaan muuqaalka haddii aad ka heshay like saar wixii fariin iyo fikir aad noo haysaana commentiga noogu reeba markasta waxaa u taagannahay inaan idiin soo gudbino wax idinku soo kordhiyo waa ku mahadsantihiin qaabka quruxda badan ee aad noogu xiran tihiin aad baan idin salaameynaa intaan ku kulmayno casharkan casharka xiga waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu